basashu horta dabadeedu meeqa gas bay leedahay ama timo ama xidid ayuu halka basal leeyahay. basasha oo la tuuraa waa khasaare bii'ada dhibic dhaqaale. basasha dabada la jaro dib baa loo beerayaa, waxay leedahay intaas oo jaanis. haddii uu yahay xididkeedu boqol jaanis bay leedahay. siirku wuxuu leeyahay hal jaanis. marka basasha gadaasheeda oo la beeraa waxay ka jaanis badan tahay 1000 jeer ama 100 jeer siday gas u leedahay ama xid u leedahay. halka kiilo ee basasha ah oo soo iibsataa ama 2 kiilo oo dabadeeda aad beertaada ka beerto sagarada ifriyeer waa dhitaysiga dhibic dhaqaale. sida soo dhawow. acuudu billaahi min ashaydaani rajiim. bismi illaahi raxmaani raxiim. waxaan ka hadlaynaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa la ii soo diray oo igu noqday bur la igu garaaco. wasiirkii maaliyaddu run buu sheegay. wartu magac haysa maahay. run buu sheegay. dowladihii way jarteen. maxaa la siin cabaad ka baxaya. soo waxaanu ku sheegayna ma aha khaaduunka noolaho. okay, Bashiir mudane soo dhawow. luuqadda diblomaasiyanimada way ka baxsan tahay wasiir Beyle ma waxay ka noqotay way ka fidigtay ma waxay ka noqotay cabsi ma waxay ula shaqeeyaa qolyaha mucaaradka ma diblomaasiyanimada ayaan u qorayn. mudane wasiir soo dhawow. marka horeysa dhibic dhaqaale ma maqashay dhitaysiga dhibic dhaqaale. horta ma taqaanaa wasiir Beylow dhitaysiga dhibic dhaqaale asalkiisa meeshuu ka yimid. okay, roobku waa imisa magac buu leeyahay. kee ugu weyn, ugu culus, kee ugu hooseeya. qalin iyo buug soo qabo. problemkaaga ayaan xallin wasiir Beylow. okay, haddii aad maqashay huuno, horta Afrika maxaa ka dhigay xeradii kaajada. huuno, horta Afrika maxaa ka dhigay xeradii qaxa iyo qaxootiga. soo dhawow. qalin iyo buug qaado. waxaan kuu sheegi problemkaaga sidii aanu xallin lahayn ayay jaamacadda cagaaran kuu qoraysaa. maanta bisha waa imisa? waa 14 mise 13. wasiir Beylow Soomaali waa imisa milyan xaqiiqada? 30 milyan, 20 milyan. okay, ku heshiiya. buug iyo qalin qaado. mudane wasiir cabdiraxmaan soo dhawow. bashiir soo dhawow. problemka wasiir Beyle ee wasiirka maaliyadda ayaan xallinayaa. okay, halkaa basasha ah haddii ay leedahay 1000 xidid 1000 jaanis bay leedahay. basasha oo la gooyo imise famil oo Soomaali ayaa maalin kasta 4 xabo oo basala ama 3 xabo oo basala yaa jikada lagu jaraa oo qashinka lagu daraa wasiir Beylow. okay, 1 kiilo oo baradha oo la hoolay meeqo waxay leedahay dhogor la hoolo. ma la socotaa meel kasta oo hoosho basasha diirkeeda inay biqlayso. halkaasi waa wax soo saarka ku fogaan maayo. halka seed ee la tuuray ee basashu ay leedahay hal jaanis bay leedahay. waxaa cunaya halkaa jaanisna malaayiin underground ku jira oo noolaha ah ayaa hadduu la kulmo ayuu iniyaha cunaya. iniyaha seed weliba iniyaha ma ah, iniyaha beerkiisa ayaa biqla. marka halkaa beer intaas oo kun oo shay baa gudaha ku jira oo hadday helaan cunaya. laakiin intaasoo shay oo kun marka basasha la jaro maaday wadataa urkaa u soo dhowaan maayo, wuu ka cararayaa. okay, intaas oo xididna mid kasta jaanis buu haystaa inuu biqlo. biqilka waxaa la yidhaahdaa bixitaan. okay, haddaba basashu waxay leedahay dabo. baradha dabo ma leedahay? baradho waa wada dabo wasiir Beylow. jaamacadda cagaaran Afrika maxaa ka dhigay xeradii gaajada? waa jawaabteeda su-aashaasaan isweydiinayay muddo dheer.
jawaabtiina wataa waa CG minus KD oo la qaato 4G waa in afar shay la helaa wasiir beyle geedaha la beero dib loo beero waxa kamid ah basasha waxa kamid ah kaaroodka waxa kamid ah toonta meeqay geed oo la tuuro oo qashinka lagu tuuro ayaa dib aad u beeri kartaa gurigaaga oo ku biqlaysa bal soo tiri haddii aadan aqoon lahayna wasaaradda beeraha tolona ka waraysa xaggaasi waa wax soo saarka afrika oo dhan hal sano hal ay siiyo gaajo dambe lagu arki maayo laakiin afrika hay noo dambaysay adiga inaabtiday suhuur soo dhawow khaliij soo dhawow maanta wasiirkeennii oo aana jeclaysan ayaan jawaab degdega siinayaa taraawiixdiiba suxuurtiibaan suxuurtay waxaan ku suxuuranayaa barnaamijkan la yidhaaha dhitaysiga dhibic dhaqaale okay haynoo dambeeya wax soo saarka projectiga goobweynta Djibouti gobol kasta iyo geed kasta iyo beer kasta ee malaayiinka sawir soo geliyay librariga jaamacadda cagaaran ama Afrika maxaa ka dhigay xerada gaajada wasiir beylow haddaadan weligaa daawan ama aadan dhegaysan maanta dhagaha idayni haynoo dambaysa wax soo saarka problemkaagaan xalinayaa Soomaali waa 30 milyan shanta la sheegay aan shanta ahayn ama 25 milyan ama 20 milyan intaad u raacayso okay waxaan ku sheegayaa imisa accounti horta dawladaha deeqda idin siiya meeqa idin siin jireen okay meeqa dawlo ayaa deeq idin siin jiray 5 6 7 8 boqol ma gaaraya waxaan ku gaarsiin kun haddaan time helo laakiin example kan ku siinaya maanta waa Ramadaan accountiga sakaatu fitriga wasiir beyle soofo nin kasta oo Soomaali ah kii gaboobay ee boqolka jiray iyo kii dhalanayay waa waajib soo ma waxaan ku darayaa waajib ma ahe ilmuhu markuu jaamacadda cagaaran ilmuhu markuu dhasho ayaa sanad la bilaabaa jaamacadda cagaaran waxaan bilaabaa ilmuhu markuu calool galo nafta lagu afuufo ilaahay ku afuufo markaas baan ilmaha 8 bilood ka hor intuu uurku ku jiro hooyadii ama 7 biloodba maalinta nafta loo dhameystiro ka soo bilow ilmaha sakaatu fitriga halkaas hooyo kasto uur leh waxa ku waajibayaan oran yaano laga bilaabaya sakaatu fitriga waa la bixinaya haddaba ilmaha uurka ku jira ilaa odaygii 60ka jiray ama 100ka jiray meeqa 30 milyan waa imisa sakaatu fitriga 30 milyan oo min $10 bixisay $10 waa imisa bilyan ama kun wasiir beyle kow taas waa accountiga sakaatu fitriga waxaad qortaa accountiga sakada iyadana meeqa Soomaali ayaa maanta lacag bangi u taala okay iyadana qor sakada accountiga waa laba waxaad qortaa sakada wanqalka meeqa ilmood baa caawa dhashay 30 milyan meeqa sanadkii dhala meeqa bishii dhasha meeqa maalintii dhasha meeqa saacadii dhasha maanta oon kula hadlayo bisha Ramadaan 13 tahay meeqa ilmo oo Soomaali ayaa dhashay okay haddaynu 30 milyan nahay ka soo qaad inay dhashaan 5 milyan 5 milyan waxaa siisaa gabdhaha badan ee 3 milyan gabdhaha 3 milyan oo neef qoro haddana waxaad qortaa accountiga gabdhaha iyo wiilasha kala kaxe oo ah wanqalka wiilashiina waa 2 milyan oo laba neef waa 4 milyan iyo 3 milyan waa imisa neef iyadana accountiga ku darso oo laba ah waxa la yidhaaho nadarka la gala ilaahay nagu waajibiyay waa imisa okay wax alla waxa ilaahay nagu waajibiyo dhan qoro waa accounting waxaad qorataa meeqa masjid baa ku yaala Soomaali wadamada ajaanibka joogno Australia Mareykan okay meeqa masaajid baa Soomaali ku yaala okay shantan la sheego ha kala reebin shan ma aha waa hal uun shaydaanka shan ka dhigay Soomaalidan halka ahayde shanta laga dhigay NFD to Djibouti to Soomaali galbeed to Idorland waxaad qorataa iyo koonfurti careysnay masaajidka ku yaala okay ka soo qaad 1 milyan oo masaajid okay Australia ana ku soo qoriyay inta ku taala
lacag badan baa ka soo gasha way isku laayaan waa meesha fitantu ka bilaabato meeshii ilaahay lagu ciidaysan lahaa ayay baryahan shartu ka bilaabataa maxay ka bilaabanaysaa dhaqaalaha ku jira barnaamijkan waxaan diyaariyey 7 sano ka hor war Soomaaliya kaale culumada kaale meeqa masaajid baynu ku leenahay caalamka masaajid kasta lacagta la ururiyo soddon Soomaali waxa weeyaan 38 gobol shanta la sheegay halka ah waa 38 gobol 38 gobol ayaa waxaan u qaybiyay 52 jimca barnaamijka la yiraahdo 52 ee filimka inaan ka sameeyo ahayd cadilan islaamku wuxuu ku leeyahay sanadkii 52 jimco kristankuna 52 yuhuuduna 52 barnaamijka waxaa la yiraahdaa 352 waa filim cajiib ah oo alifay 27 years ka hor oo wax si ka noqdeen maalintii September 11 ay dhacaysay ka hor ayaan barnaamijka inaan diyaariyo oo sameeyo ahayd ma inaan ilaahay muu qadarin haddana kuwa si kala u qaatay oo iga damacay xoogaan haddana waxba si ah wiilkayga xitaa ka sameeyay barnaamij jaamacadda 52 leeyahay okay sidaan doonayay looma sameeyay si kale ayaa loo sameeyay xitaa inuu aab noqday ahayd laakiin wali uu cadilay okay 52 jimca oo Soomaali masaajid ay leedahay meeqa soo xaroonaya waa jimca kasta 52 accounti oo asbuuc oo meeqa gobol meeqa state halkaasna waa accounti okay gabdhaha la guursan waxaynu ku daraynaa meherka xisaab baynu ku daraynaa ninka soo gabadh mehersanayo ama garoob ha ahaato ama gabadhe okay gabadha meherka siinaysa waxaan ku daraynaa bi'ada meherkeeda ilaahay inuu barakeeyo gabadha oo adigu ku barakeeyo carruur gabadha laga bilaabo saacadaas wasiir beelo gabadh kasta oo la guursanayo meherkeeda iyo meherka bi'ada okay health environmental education meherka jaamacadda cagaaran okay meherka dhirta xayawaanka cayaanka xoolaha loogu talagalay ee ilaahay inuu ka dhigo carruur barakaysan guri barakaysan taasna waa account okay ilma kasto ku dhasha meeqan ka bixinaa gift ninba intuu doono awoodi karo okay ilmihii dhashaba gift $100 ka soo qaad ilma kasto ku dhasha $100 ka soo qaad oo ilaahay aad ugu xamdiiso okay gabadh iyo wiilba accountigaana qoro okay barnaamij si u soo gaabnaado 3,001 accounti oo barnaamijka ku saabsan da'da account waa u sameeyay okay da'da inaad sanad kasta marka aad maxaan ku dhahaa uu ku dhamaado inaad gift bixiso okay wadnaha wasiir beyle ama wadnaha bil aadanku intuu boodaa ka soo bilow maalinta dhalatay ma ah maalintii nafta la geliyay wadnaha loo dhammaystiray ilaa maalinta dhimanaysa wadnuhu intuu boodaa okay wadnaha boodaya meeqaynu ka bixinaa Soomaaliya isako 10 senti ka soo qaad wasiir beyle 10 senti ka soo qaad wadnaha boodaya war 10 senti inaan bixiyo marka 20 ku dhufo 12 saacadood habeen iyo maalin halka 24 senti wasiir beyle oo wadnaha boodaya gift okay kuwaan awoodi kara inay bixiyaan labor bay ku bixinayaan muruq macal kuwa indhaha macal kuwa dhagaha kuwa indhaha ee dhagaha projectigan u sameeyay deegaanka markaan tagay ma aragtay biyo xireenada project gaar ah oo library jaamacadda cagaaran yaala ayaa ninka dhagaha ninka indhaha okay kuwa lugaha kuwa gacmaha mid kasta shaqaan u sameeyay okay haddaba kii aan lacag haysanin muruq haya mid la dhaafaya male dhagoolan la dhaafayn cagoolan la dhaafayn lugool dhaafayn nin kasta shaqo ku haboon ayay u haysaa gacanta cagaaran okay haddaba kii lacagta hayay 10 senti ku dhufo 24 saacadood 24 hour intaana waa accounti qoro okay xubnaheenu waa in mise wasiir beyle iyaga meeqan ka soo qaadnaa okay 10 senti mise waa yaraynaa 5 senti qoro halka adoo ka duulaya barnaamijka la yiraahdo dhitaysiga dhibic dhaqaale allahuun horta maxaa ka dhigay Afrika xeradii gaajada iyo qaxar okay halka ka bilow diyaaradaha ka duulayso halka accountiga qoro
صدح كل يكو جارسي برنامج كلا جلنا وضله أنت أصو أكاونتي قرأ هنكوه شينو إن استيت كستا يقبل كستا لسما يقبل بركايسن قبلها معمولة قبلها بركايسن يهرج الوضرة لكن قبلها أيال عقد معمولة قبل كستا يمال كستا العقد لصاؤر يوسير بيله ونقوص شوينا شرط إنان صح الله استعماله أوكي مت كلام كوضرة يا نين كستا أو صوماليا ميقو قيلا جاب ميقوعنا دقان كمر كان تيجي الصومالي قلبيت هل كوسير أما هل كماري أما هل كواسي جادعنا قار وحان صار كي طبعا كم أو بر مالين تقيلا أوكي جاد كمان كسومينا سو بيشير هذا كوجي ريمك سند كي صومالي جاد كسونتي سند كي سيارة كسونتي وحان صار كي كوس سنكرت كيلو سنكر كعناية جادك ويست عمر دجية كيلو سنكرتها iyo labadii baakada siyaarka iyo 10 kun ee bir ee jaadka ah iyo maxaan ku rahaa biihi meeqan siina iyo kookadii intaana hal account ka dhigo nin kasta oo Soomaali ah ka sooma jaadka iyo siyaarka iyo sokortan uu cunayo iyo ka soomo halkaana accountigaas waxa kaga soo yeelaysa lacag aad u fara badan isoo dhaweey okay waxa kaga soo yeelaysa lacag aan tiro lahayn caafimaad baa soo hoyay جاد كامل اسكندرينا اوكي waxaad ku dartaa xafladihii la sameeyay laba nin baa la casuumaya Soomaalida ama saddex qof la casuumaya 100 qof cunto gaaraysa ayay karin xaflada lama qabanayo xaflad dambe lama qabanayo xafladii la qabanayay ee la isku imanayay ama gabadhii la mehelinayay xafladeeda waxa la siin ciidamada waxa la siin maxaan ku dhahaa booliiska waxa la siin shaqaalaha wasaaradaha halkaas اوكي halkaas ka bilow ku soco ilaa 3,000 aad gaarayso mudane wasiir waxaan galeynaa wax soo saarka hal sano oo kaliya barnaamijka jaamacadda cagaaran ma qaadanaysaa wax soo saar marka la yiraahdo ma qaadanaysaan system kan la yiraahdo health environmental education CG-KD اوكي وادي شرحي 3,000 وي geedka yaanu beeraynaa horta geedka daroolka meeqa caleen buu leeyahay meeqa wax uu dhaliyaa barnaamijka wax soo saarka ayaan idin galayaa ee beeraha halkii geed ee Soomaali ku yaala intuuna dhiman intaan dhuxul laga dhigin inta aan la goyn ba 3,000 oo geed laga sameeynaya sirta waxa idin haysa jaamacadda cagaaran علامة ضفيري شيخ بشير وشرح ريتولكا علامة وشن لامود شن تاع لامود waxay medelaysaa shanta tiirka islaamka halka uu turjumay halkan waa saddex ningax koow kaasi dhulku medelaya waa ningaxa ciidda iyo dhulka kan waa ningax kale iminka ma sheegayo kan waa ningax kale halkan waa aqal Soomaaliga أقل صومالي ومعجزة والناسا وترين ومشين عدلا ومفتاح النمي حبك أقل كصومالي لسنجريسية هاي حدي أذيقو مير قبا أو أقل تمام يهاي أو أمسن إن أتقادر كبح أقل كصومالي ومشين طيح كيكا طيح إن جدا لما أقوله قادر كبحنا مشين بيرت إنه قضى oo haddana ku shaqeynaya ciir ma taqaanaa wax faaray okay ciirta waxa u taqaanaan caano geel ama caano lo-aad iyo caano ari oo la lulo jaamacadda cagaaran laba shay oo la isku daray ama hal shay oo la huuriyay ayaan ciir ka sameeynaa geed kasta 3,000 nooc oo ciiraan ka sameeynaa ciirtaasaa kala badinaysa oo gaas noqonaysa ciirtaasaa mishiinkan dhaqaajinaysa mishiinkuna waa aqal Soomaaliga itijaal mucakas biyaha kulul biyaha qabow iyo hawada iyo jaamacadda cagaaran sil ay wadato iyo aboorka
sida uu sameeyo dudumo iyo shinnidu say u samayso godadka dhasheeda ama malabka oo aqalka Soomaaliya lagu daray oo xisaab lagu daray cajiiba waxaad arkaysaa mashiin beertii qodaya waxaad arkaysaa mashiin ceelkii qodaya mashiin laamigii qodaya mashiin xabaashii qodaya oo ku shaqeynaya baatroolkani sharbu wataaba inaga daaya baatroolku intaan ay soo saarin inta waxa la suuqiin laynaya waa baatroolka dirti war baatroolka inaga daaya haddaan nimcowna ka warrama baatroolka marka barnaamijka jaamacadda cagaaran dhowr milyan baan u malay inay gaarayso sawir aan bixiyay dhagay jalaq waa leeysi waay waxaan u malay inaan u diray Shariif madaxweynihii hore inaan u diray Sheekh Xasan mala sanaawi Afrika oo dhan buu qosaya markii horeysay yaani ma ahayn kaliya wax Soomaali ku ah Prime Minister ki Ethiopia kaasa igu roonaa oo markuu baqtiyay aan barnaamijka u diray oo arso u tagay ayaa wax ay u ilaahay saraagiishii Tigreega waanu ku ballameena hadda inay u diiday ka soo qaadaa leeyahay federaalku way celiyeen ileen been baan u haystaa uu dhimanaya ka waran Tigreegii baa jeclaaday barnaamijka aan waday waxay yiraahdeen niyahu ninkii uu yaxawnsanaya ay masuul kartaa ma aynan ilaahay muna qadarin waxaan u qaatay inay ii jaakilayaan okay barnaamijka leeyahay Afrika maxaa ka dhigay xerada gaajada saraakiishii sirdoonka ayda Ethiopia markay aragtay dagaha ii raaciyeen inay uu igu caay iyo kuwii la shaqeynay nin waala bay igu ilaa okay laakiin Tigreegii in gumaysanayay ayna bahdilayay iyaga waxa ka dareemaysay inay barnaamijka iyo luqadda huun Afrika maxaa ka dhigay xerada gaajada hadda daawateen likaha waa barnaamijka ku qoran mala sanaa waa ku qoraa in Umar Geelle yaa ku qoraa maxaan ku madaxweynaha Djibouti kii Suudaan baa ku qoran waxa ku qoran madaxweynaha Soomaaliya soo maray waxa ku qoran Kenya horta kuwa Afrika waan horo geeska Afrika waan huba barnaamijka Afrika maxaa ka dhigay xeradii gaajada waxaan ka bilaabay Australia culimada Soomaalida iyo odayaasha iyo dhaqanka jooga halkan ayaan ku yiri barnaamijkan hadaa doonaysaan inaynu Afrika ka saarno gaajada ila qaata way jeclaadeen laba masaajid oo maalmoon ka sameynay way jeclaadeen barnaamijkii markaan soo diyaariyay waxay u bedesheen waxay ku shaqeystaan inay abaar dhacday jecel yihiin oo ku shaqeystaan in dadka badankiisa inta arkay in la socoto iyo iscab ku tumaysa waxay jecel yihiin inuu dagaal dhaco oo lacag ururiya okay 7 sano Australia waan u soo bandhigay iminka bariid meeyana waxa u soo bandhigaa caalamka marka haddaad doonaysaan dawladey problemkiina dhaqaalaha waa ka wax soo saarkana Mareykan iyo Ingiriis mar ay soo baxdo man baraf aan ka bixin ama Europe oo laga yaabo 6 bilood kaliya in uu soo baxad ceedo Afrika oo 12 saacadood ceedo ay socoto baraf jirin oo geed kasto la beero baxayo in la soo iibsanay inaga biilayna Ingiriis iyo Mareykan waxa u sheegtaan iyo European inay projectka gooweyn oo la soo leexiyay oo gobol kasta la sii mariyay ilaa Djibouti inta asoo dhan carrada meel la iibinayo ma jirto carradu waa diyaar halkan markaan shay beerayo carrada ana sameeysta dadku soo iibsada hadaa doonaysaan projectiga haynu qaadano haynu bilowno waxaan ku tusayaa in gobolka Soomaali ay leedahay gobolka Soomaaliya ku leeyahay from NFD to Djibouti inta kaliya in adduunka laga biilo ayaan tusayaa wasiir beeyay luqadaadii waan ka faa'iiday walow aan jeclaysan baasha dawladnimadu luqad gaar ah leedahay Ahmed ninka la yiraahdo Dani baan ku haystay berigii uu iska maanta Ramadaan ku jiraaye uu iska adna ma ku darsaday wasiir beeyay fariintan gaarsiiya si degdeg ah ila soo xiriir luqadda dawladnimadu saa ma aha nimankii qaran dumiska ahaa way dabaal degayeen xalay nafta ay keenay burlo ila dhacay maskaxda ay u noqoto qodbadaadii waxaan isku ognahay barnaamijkan ma qaadanaa dhaqaalaha intaasoo account diyaar bay Soomaali u tahay inta caafimaadka qabta idinku dawladay diyaar ma u tii wax maqlaysaa
horta dawladdu ha maqashaa maraykan iyo Australia waxa ka maqlay laakiin shacabkaaga hadii lagu yiraahdo jannadii ma maqashaa wasiirka maaliyadda iyo dawladda fariidan gaarsiiya xalkooda waan hayaa taas waa dhaqaalaha iyo horumarka siyaasadda caafimaadka maxay inoo diiday inuu dawo sameeyno coronavirus inaan soo saaro maxaa inoo diiday dawadiisa ama dawo kasta inaan soo saaro mala socotaa dhirtan wadankiina ku taala oo in laga sameyn karo dawadana waa idin hayaa dawadiina sida loo soo saar lahaa waan idin hayaa waa shay lagu daray ama shay laga jaray okay simple waa daqsiga geedaha wadankiina ka yaala intaad soo qaadato caleen geed kasta caleenta intaad soo bixiso oo saa u buuriso ku subko qaar buu daqsigu ka cararaya qaarna wuu soo ordayaa wataa cilmi baaristu okay war geed ku dar okay quraanjo u geli agteeda qaar way tarmi qaarna way dhiman okay dawadu waa sidan uun cilmi baaristu waa sidan uun mishiinku waa shay lagu daray oo ruqaansaday oo kaliya okay haddaba dhanka siyaasadda dhanka caafimaadka waan idin hayaa dawada kansalka waa idin hayaa insha Allah dawada baabsiirka waa idin hayaa dawada samboorka waa idin hayaa aniga samboor intii laga qalay oo lagu guuleysan waayay baan anu dawo samaystay waan isteynay markii uu soo kacaba sidii buuriga ma aragno saale sidii buuriga biyo dawo shay isku dartay oo saa aatiri adi iyo hindiso waa isdeynaysa okay baabsiirka waa idin hayaa kansalku intii uu dhacay waan idin ka shakiyay 10 jeer ilmaada rayaan aqliga ma isticmaalna aqliga intaynu ogolnahay inaynu aqliga maskaxdeena intaynu rabaa inaynu isticmaalno ma la socotaa Soomaalida hadii la soo ururiyo dadka wax alifi kara buraanbur iyo gabay iyo hees war kuwa inoo daayo wax yar intaan jamacada cagaar inta gabayday aan turjumayo inoo daayo okay waxaan gelayaa dhanka siyaasadda maanta inaasata okay ma ku daynayaan haddaad tiraaho problemkaas waan xalinay dhibac dhaqaale waan xalinay way sii xanaaqayaan maxaa xala wadamadii doonaya inay ku gumaystaan haddaad aqligan keento way in sii gumaysan maxaa xala maxaan ku darayaa gadaal baan uga hadlayaa waxaan ku darayaa Djibouti waxaan arkaya kuwa soo qoraya ama hadlayo la Djibouti calaaqaadka loo jaro وبعشان دقدقة محيطة بعشان دقدقة علاقات كان لسه جريو جيبوتي سي علاقات لو جرى كرا وذاك كان عسعاسي واحد بدل سود دالي شان يلا 14 سنة تاجن وعسعاسي هو وذا سهل جميل كده اوكي هسكا البحث كده دون عرسيه شعب كجيبوتي بان كربنا اني اذا مدى بيلان كليه ومع الإصلاح ودعينا وكسر قادنا العقد دولة جيبوتي بقى علاقات كلها جريا وماشي اللي جاء فائدة لها الدقيقة ما مقالي كرو متذكر والشعب كياسي إلى يدهن وسيبها الإريا أو كان الإريا حتى وساردها أيام أورين كريم يا كوش قال وسير كأرمها الدبدة أما وسير كورفاضين ده أوكي مال منك إسكيري محيطها أما وساردوهم بينك هاي النقط دولة سنوات كهذا بشير بدل السنين أركز جرتي مية تحي وحن كم مقصد الصومالي هلا صح اللو قدا ويفرحين ويستنكي قار ويفرحين أفريقانكي المدرسينها ويفرحين ما حد كفري الصومالي بقى فرح حسن أو إيه صدر ثاني أو وسير بيله يتصطي أو ترى الله هاي أوكي وحي موضي إن هالك كنا حيو أنا كذا هذا رجعت كسرة هذا وحال يدي ماشى سواء نبض ما أها نبض حكومة شيء رأوتك هاي ما حينو سمعنا هذي أينو استبروا أو أينو حلنا ما يندينا يعني ما ويسيحنا قيا هذا بس سياسيين تاي حالة الإيرو إذا كان يدين داعي هذا إنه حلنا دقاله هنا أو إنه كم معرنا ما يندينا يعني حل قريبا كفلا في تباور أوكي أفريقيا مدحوينه مركو أفريقيا تجي أنت أصلا كليب بانو قيبية كوي يوتيوب ليدا يمسجر هذا
أنكو إلوان كان نحي فرماجة إنو تغو أفريكا وهذا هدي أفريكا إلا يلا ربيع إذا ماذا الميش الجوجا حاجة صدق كون قاطع لا بكون قاطع إنك الصومالي بقول الصين أما لا بقول صدق كون قاطعنا يا أما لا بكون قاطعنا يو رزقي سبب اللجوء مشكلة الصومالي هيستا حتى إنه حل إنه صو إذا ماذا أفريكان كم العجوية أوكي حالنا كون جوجا سوكن ديرا يسوي مشاكل موايا سو شقدي موايا مركا ماشي مشهر كو قادنيس ولبا أفريكان أحي هذا ويستن كحكومه أو مقاشي إنه مرايكن ديدي دورشة هذا أو مرايكن حكومه أفريكان أو بيرو أو والله هذا أولي هاي سودي فرماجو إنا تاكتو أنوان كان نحي وركجوج هرتا حما قشا والمدحوينها كقبطة إذن لها أنا كذا هذا كهر روكان ورماجو كجوج وريكن وامر وعدي سيئه وروا مريحانه وعدي سيئه اوكي وروا دارده وعدي سيئه ورماش هو حمر او واحره هوي ور maxaan ku dhahaa war kabla la xagaa jira oo sun ah oo arki karin war ninkan haduu shar ka fogaado uu raganimo keeno shartaasi kordhaysa ana ka dhan horta xuma qashaan meeqa kilib baa idin la wadaagay oo laha farmaajo ka joog war khayrka uu badiyaba shartiisi kordhaya waxay doonayeen inay ku shaqeystaan halkan saxiix badan saxiix goobtan saxiix ka oo lagu hanjabo marreexan baad daarood baad waraadaaro hawiye waxa uu taliyo doqonka kabala waxa uu taliyo doqonka iidoor waxa uu taliyo doqonka okay Soomaali cid kasta doqonkana nin marreexana ma raba oo nin daarooda ma raba oo adeero nin Soomaali hadii la rabo in uu guulaysto waa nin hawiye uu guulaysto ama nin dir uu guulaysto ama nin sheekhala ama nin Soomaalida kala oo uu guulaysto nin daarooda lama rabo ما دونيان لمش كحجان أجا ورد الشيء لكن هذا محن سمينا هذا وحن سمينا فيتا باور جف إنه اسكت درنا جف إنه درنا نيك عيود درنا أوكي شعب كصومالي ملك استوجوجا هكام مظاهرات فرقلين أفريقيا فرقلين يوروبيان iyo safiir kasta oo khalad inagu wado oo in qasaya in la yiraahdo get out safaarada erina safaarada ma aha calaaqadka loo jiro safiirka ama qofka laga shakisan yahay dawladnimada ayaa marka hore la diri karaa bax idimo baahni okay hadii shacabku taa sameeyo oo mudaharaad la sameeyo oo shacabku hortaago waa laga deyn darrada waa laga deyn هنو له شينو شباب كان وويله شيني هن له شينو هدينو انتها سماينو وينو كجولي سنينا نعب كستا يا نعس كستا اوكي وان كجولي سنينا هوية نارة اوكي قبل نارة كسر وان كجولي سنينا وينو دعينا بل برها بالله من كجوجا فيسبوك انتو اسكو سميه فيديا دغال با دحاي ku farxsan ee sheer garay kaasi muna ahayn kaasi muna ehel muna dhabahan naarta qaadi kaas iyo kii qoriga haystay waasay marka ninka madaxweyne soo noqday ee bir Ramadaan jooga ee ciidamo soo diyaarinaya ee forjay soo gelinaya ee doonaya inay xamar gubato ilmaha reer muna kaasi dhabaha shaydaanka muna qaadi ilaahu soo hali بل أحمد مذوبة يدركيسي iyo maxaan ku dhahaa dani dirkiisi ku farxaya inay xabad ka dhacdo xamar ay orasho miyuunan ahayn dhabaha shaydaanka okay war adeero ogayaasheenu ha shanqara ogay dhaqameedku ha shanqara culimadu ha shanqadho masaajid kasta waa in laga istaagaa oo la diidaa oo culimadu mudaharaada oo dhaqanka mudaharaada adeero bahasha waynu lama shaqeyn haddii taa sameeyay adeero nimankan mucaaradka ah war idinkayda aragnay oo idima doonayno oo wada cadaysantiin war xasan sheekh yaa doonay anu malay maayo qof caafimaad qaba inuu doonay sheekh shariif lama doonay cabdiraxmaan lama doonay maxaan ku dhahay nimankan bahawiya lama dooranayo daarood kale soo sharaxay maxamed deni iyo waxaan dooranaa okay war ninka nin hawiya ama nin dir ama nin sheekhala bahasha haase soo sharaxo oo raganimo leh oo na tusa wax
oo ninkan mareexaan ee boqolkii konton nooc u cadhaysan ee la doonaynin khayr kastuu keeno waa la sharaysane hanu iska dayno kolay ku tahay ra-iisul wasaaraha haynu dooranno okay nimankani doorasho ma raba waxa dhibaya waa doorasho xalaal ah haddaba iskiiji isdabci baa ka fiican waxaan aaminsanahay afrika inaan tagnaa khaldanayd haddaan afrika tagnay seen uga baxnaa yaynaan iskiijinine xeelad farsamaysan hankeeno jabuutina yaynaan wax kastuu inagu sameeyo yaynaan dheragay jaraq u siinin shacabkay jabuuti waa soomaali wayna hotagay war xitaa canfar baynu ka qaadanaa xoolo iyo oromo magar shacabka oromo haddaan u tagno donation unana war noogu shubo way noogu shubayaan 100 milyan oo oromo haddaan nahno sanadkii soomaali afrika baxaysay hadhow baad halkaan siinay nasiya sadaqa nasiya war sakaatusi nasiya oromo war canfar nasiya war halka waa idin hayaa ee wax maqlaysaan bashiirow barnaamijkan ammaan kugu yahay u dir saaxiibadaadii diblomaasiyiinta ahaa ee Soomaaliya jeclaa intaasaan ku dayn caawa burkii ku ila dhacayo ana ka dhan salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh